بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد dhamaantiin walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii silsilada geedi socodka xagee ka nimid xageys u soconaa. xalqadii hore waxaan kaga soo sheekeynay dhamaystir waxay u ahayd xalqadii kasii horeysay oo ahayd jiritaanka alle qaybteedii labaad bay ahayd. haddana waxaan ka sheekeynaynaa jiritaanka alle qaybteedii saddexaad. marka qaybtan saddexaad waxaan kaga hadlayaa waxa weeye aniga oo matalaya dadka muslimiinta iyo mu'miniinta alla rumaysan. baan waxaan isweydiiyey su-aal ah, why am I a believer? maxaan alla u rumeeyey? marka waxaan rabaa an example inaan usoo qaato namuudaj ahaan deedna aan kula doodo mulxidiinta. sida ogsoontihiin yani waagii hore mulxidka marka la yihahdo waxa ahaan jiray dad kale oo ajaanib. hadda laakiin waxaa dad badan oo Soomaali ah oo faraad badan oo mulxidiin ayaa jira oo alle iyo diintiisii aan rumaysnayn. ujeedka aan barnaamijkan u sameynayna ama aan u wadnana ma aha inaan iyaga kula dagaalamayno ama aan rabno inaan ku qasabno inaan sanka dulle fikir aan sanka gelin, laakiin waxaa weeye dood. qul haatu burhanakum iyo aan isla doodno oo aan mataqaanaa waxa aad tirsanaysaan ama aad ka tirsanaysaan ama aydin mataqaanaa khalad u fahanteen. waxaan diyaar u nahay in aan idinka caawino, idinkala doodno, idinkala mataqaanaa isheeg si cilmiyana, macnaa dood cilmiya inaan wada fariisano baan diyaar u nahay oo ujeedku barnaamijkan. marka insha allahu tacaala maanta waxaan kor istaagayaa maxaan muslim u ahay, why am I a believer? intaan taa horgelin waxaan rabaa inaan siiyo options for the atheist. qofka aan alla rumaysnayn, agnostic ha ahaado, ha isku sheego, ama atheist ha yidhaahdo, shaki ha ku jiro, wuxuu rabaa ahaado. waxaan rabaa inaan laba su-aalood, laba arin inaan laba dooq inaan siiyo. macnaha oo hanjabaadna ma aha, laakiin dooq cilmiyeed, dood iyo dooq cilmiyeed. kow, qur-aankeena alla subxaana wa tacaala uu nagu soo nabigeena kusoo dejiyey sala allahu alay wasalam kariimka aynu haysano. waa laba doodood baa ku jirta oo qofka mulxidka ah oo u furay. labada doodood waxaa weeye dooda koowaad, to accept the challenges of the Quran. qur-aanku wuxuu sameynayaa baratan baa leedahay, kaale ila baratan. markuu qofku yidhaahdo waa yani barxadda banaanka iskaale ila baratan, macnaa ila lagdan, ama aynu isla challenge karayna awooddaada ay tusi, yani saasoo kale ah. challenge wuu la sameynaya qofka mulxidka ah. kow, hadduu challenge qofka aqbalo waa la soo dhaweynayaa. haddii uu mataqaanaa ii sheeg uu diido challenge-gii uu diidana waxaa laga codsanayaa inuu si respect leh uu mulxidkiisa u ahaado oo uusan dadka mu'miniinta ah rumaysan uusan mataqaanaa dhibin. ma garata? marka tusaale ahaan haddii aniga hadda aan jimka inta tago 100 kilogram aan kor u qaado, marka aan ku iraahdo markaas adiga waa kula baratamay, waxa laga rabaa waxa weeye 100 kilogram inaad kor u qaadid ama ka badisid. haddii aad 100 kilogram aad qaadi weydid oo aad ka yar aad qaadid, that means waxa weeye ku fashilmatay baratankii. sidaasoo kale si la mid ah dadka mulxidiinta ah, qur-aanku wuxuu la baratamay oo wuxuu soo bandhigay challenge uu soo bandhigay. challengeyaas marka haddii ay qaataan ay ku fashilmaan ama ay qaadi waayaan way ku fashilmaan. haddii xor way, haddii rabana waxay dhihi karaan ma gelayna challenge-gaas, laakiin waxaa laga rabaa haddii challenge-ga diidaan inay banaanka ka maraan oo aysan mataqaanaa aysan dhanka xumaanta iyo aflagaadada iyo waxa aan cilmiga ahayn oo huhaada ah ay ka dhaafaan. kow, challenge koowaad, qur-aanka saddex baratan buu qofka mulxidka usoo bandhigay. الله سبحانه وتعالى وحكوا له القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هدي أتشكي كقبتان agnostics، هدي أتهين atheists كو الذي waxa rabtaa naftiina u sheega
diidantihiin ama ka shakisantihiin in qur-aanku nebi maxamed lagu soo dejiyo alla xaggiisa ka yimid fa'tuu bisuuratin min milihi suurad qur-aanka la mid ah sameeya. intaas keliya laguma dhihin waxa lagu yidhi haddana wax ku darsaa lagu dhahaya weli extra lagu daro ah wadcuu shuhadaa'akum min duuni illah markhaatiyaashiina markhaati macnaha ereygan shuhadaa hadda markhaatiyaal buu Soomaaliyan u fasirmaya laakiin waxaa laga wadaa khubaradiinii kuwii cilmiga lahaa saynisyahanadiinii kuwii mataqaanaa isheeg physicianka ahaa oo ku takhasusay cilmiga physicska ama astrophysicist ha noqotaan ama physicska caadiga ha noqoto ama chemist waxay rabaan ha ku takhasusaan ama cilmi luqad ha ku takhasusaan linguistics ha noqdaan u yeeraa la yidhi intaa rabtid min duuni illahi in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan. challenge-gana wuxuu furan yahay 1450 sannadood ilaa iyo hadda inta taariikhda aadanaha la og yahay qof gaal ah iyo ama aadana ah ama wuxuu raba ahaado oo challenge-gaas qaaday bartankaas qur-aanku uu sameeyey qaaday oo ah in suurad lamid ah uu la yimaado xataa weli jaanis aan leedahay suuradaha qur-aanka ugu yar suuradda ugu yar xataa isku day inaad soo aliftid oo ah suurat الnaxl بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدح آيات بك كومنتا كلية sababta waxa weeye xigmada ku jirta waxa weeye oo challenge-gaas waxa weeye sababtoo ah aayadaha quraanka ah waxa waaye a unified sentence oo waxa waaye isheeg wuxda naamuus leeyahay wax dhan midowga ku jira hadal iska mataqaanaa oo la iska dhahayo ma aha hadalkii rabbil caalamiin warta ko laakiin markii aad mataqaanaa aan yani walillahi almathalu ala tusaalahan u sameeyo mulxidiinta معناها بل اسكو داي حتى ان اد متقانا قرتيد سيدي ربطا marka inaad ku qortid bal yani tusaalahan bal itusi bal ama noo sheeg ama aadanaha u sheeg sidee hadii xataa journalist aqbashid sidee ku sameyn kartaa saddex aayadood oo quraanka la mid ah waa suurtagal ma impossible waa sababtoo ah laga rabaa waxa way saddexdaas aayadood in ay ku jirto macluumaad aadanaha uusan aqoonin shuruudaha ka mid tahay sababtoo quraanku waa nubuwa wax ku jira quraanku dhan nabi maxamed ma ogeen وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل الله وتقولها ما لبضن قولها ما ذن أجين نحن نقص عليك أحسن القصص قصوين كان كاشة كينين وحنا كوشين وح أذيك أجيت قوم كاجا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكف ما أنا أذن جوجين مركي ما تقنا دعي سي وقتي قرية تورنا رير ما تقنا إيش رير بنو إسرائيل عندي كفارة قاضي لهيت مريم maadan joogin buu alla ku leeyahay macna waxaas oo waxa qaybiyaad waa alla u ka hadlay marka hadii xataa aad challenge-gaas aqbashay adiga iyo saynisyahanada kullu isku soo ururtaan saddex aayadood ma keeni kartaa saddex sentence oo yar yar oo kooban oo suurada naxl la eg waa inay laakiin ku jiraan sentences macluumaad aadanaha uusan horey u aqoon laakiin hadii aad meesha la soo shirtagtid sheekadii Musaylama bin Kadhab oo ahayd ma taqaana ii sheeg muroodigu maxaa ku ogeysiyay maroodiga intuu yiri waa lii waxyooday wuxuu sheegay marka maroodigu sifeeyay wuxuu yiri maroodiga maxaa ku ogeysiyay ma taqaana wuxuu leeyahay faan dheer iyo seen gaaban iyo calool weyn iyo waxba ku sifeeyay marka waa lagu qoslay macnaha isaga sifada uu sheegay beenka muusa sheegay laakiin wuxuu been ka sheegay inuu yiraahdo ilaahay waa ii waxyooday way ilaahay ku waxyooday dadka dhan waa ogyihiin maroodigu wuxuu yahay qof walba kan baadiyaha joogay kan magaalada joogay maroodigu inuu faan leeyahay waa wada ogyihiin waana arkeen in badan aragtay famina marka su'aalahaas waxa uu soo qaatay waxa weeye haddii qofku challenge-ga suuradaas uu aqbalo waxaa laga rabaa inay noqdaan macluumaad aan ku jirin aadanaha ogeyn ha noqdaan wax dabeecada ah ama aadanaha qoseeya ha noqdo jirkiisa ama ha noqoto wax koonka qoseeya oo qaybiyaad hadda ah laakiin xaqiiqoobi kara inay xaqiiqoobaan la rabaa misdaaqiye ay noqoto marka challenge-gaas challenge dheela ma marka way qaadan waayeen dadkii horena maysan qaadanin ilaa haddana cid aqbashay malaha marka ilaa wuxuu leeyahay fa in lam tafcalu hadaydan ma taqaana marka challenge-gaas aydan qaadanin oo aysan aydan keenin suurad quraanka la mid ah suuradaha quraanka la mid ah walan tafcalu haddana goodin kala bal fiin walan tafcalu lan ma samayn doontaan macna ma dhacaysa waa impossible alla u sheegay fattaqu النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين كدور سنادا النار ضد يدغحان متقانا اي u yihiin shidaal marka waxaan Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin oo qaybiyaadkii og
يعني ولله الامر من قبل ومن بعد wixii hore iyo wixii dambe iyo wax walba isagu iskale amarkiisa ayaa ku leh ma samayn kartid. Challenges is impossible, you cannot do it because human yaro miskiina oo u baahan inuu cunto cuno, masquul galo, oo u baahan madax hadduu xanuuno wareeraya dhihi karo wax ma qori kari baa tahay. Marka wax suurtagala arrinkaas ka ah maaha. Challenge-ga labaad marka oo haddii kaas samayn mid kale lagu siiyey fursado waa badan yihiin. waxaa lagu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qur-aanka am yaquuluuna iftaraahu, ma waxay odhanayaan qur-aanka wuu been abuurtay nebiga, may ku odhanayaan qul fa'tuu bicashri suwarin mithlihi muftariyaatin, waxaa keentaan 10 suuradood oo been abuur ah oo la mid ah, wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin, una yarta cid alla ka sokayso dhan in kuntum haddaa run sheegaysaan. 10 suuradood oo been abuur hadda fiirs kuwii hore suurad qur-aanka la mid ahayd been abuur hadda lagu ogolaaday. been abuur si ku keenay hataa been abuurka hadaa macnaha samaysid waxani xagee ma keeni kartid, suurtagal ma sababta aadanii ka horeeyay iyo kuwii hore iyo kuwan dambe iyo kuwa hadda jooga cid samaysay ma laha, hadda isku tageen hataa cid samaysay ma laha. marka challenge-gaas labaad haddii aad tiri weydid mid saddexaad lagu siiyey. challenge-ga saddexaad oo ah midda kale waa lagu badiyay, waxaa lagu yidhi jinniga xataa jinnigii idin siga isku taga. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul in ijtamacat al-insu wal-jinnu ala an ya'tuu bimithli hada al-qur'ani laa ya'tuuna bimithlihi walaw kaana bacduhum libacdin dhahiira. waxaa ku tirahdaa nebi maxamed haddii ay isku yimaadaan ay kulmaan waxa jinni jira iyo waxa dad jira hadday isku yimaadaan si ay usoo saaraan qur-aankan mid la mid ah, laa ya'tuuna bimithlihi walaw kaana bacduhum bacdan dhahiira. haddii xataa isku muuqdaan ay soo bada baxaan oo jinniga caadi shayn cayn shaahid u aragtid hortaada oo isagana uu ku arko ujeedaan aad isku wada fariistaan jinni kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay kulli la isku keeno qur-aankii wax la mid ma keeni kartaan because impossible because ta'liifka qur-aanka waxa alifay oo keenay oo soo dejiyay waa kalaam rabbul caalamiin Allah subxaanahu wa tacaala magarta oo og ghaybiyaadka yaclamu sirra wa akhfa caalim al-ghayb wa shahaada. qaybkii wixii aan la arkaynin iyo wixii muuqdayba allihii ogaa iyo sirteeda hayay ayaa soo dejiyey. marka ninka la yihahdo abulahab oo kale tusaale ahaan abulahab suurad baa lagu soo dejiyey oo suurat almasad. Allah subxaanahu wa tacaala oo ka sheekeynaya arrinta abulahab wuxuu yidhi tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab وامرأته حمالة الحطب سيصلى يعني وحو قلي دونا النار بو الله وحصون نول أبو لهب أو نول بصورة سلسوة دجي أبو لهب ومقلي 8 سنة كدب أيوسين ولا صورة دمكي لسوة دجي كدب أيوسين ولا ومقلي إن أو متقانا إيشاك النار وقلي دونا قال لي مدي سوكو سيجري أبو لهب قرآنك وبينين كري هدي وليه لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. markaas suuradaas waxay noqon lahayd macnaa waa isku dhici lahaa isku beenin kara laakiin yani Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ogaa abulahab inuu gaaray mowqif laa rajciyata fiih, mowqif oo mataqaanaa no return mataqaanaa dead end waxay yidhahdaan meel xiran uu tegay wuu fogaaday. sababtoo abulahab mulxidnimo keliya waana waxaan raba inaan xalqadan uga digo abulahab mulxidnimo keliya kuma adkaysan mulxidnimadiisa iyo gaalnimadiisa dagaal iyo cadaawad ayuu kula soo jeestay dadkii mu'miniinta ah nabiga rumeeyay iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo dagaal gacan iyo af ah. markaas taas waana marka tan rabo inaan uga digo dadka mulxidiinta ah ee Soomaalida ah way mulxid haddii aadan ku qanacsanayn waxa alla soo dejiyay oo aadan challenge-ga aan hadda ka sheekeynin aad aqbali karin waxaa haboon in aad mid noqoto mid respectful oo fikirkiisa iyo wuxuu rumaysan isaga ay ku ekaato. laakiin dadka mu'miniinta ah alla rumaysan oo hoggaansamay ama aaminsan in uusan ku dhibin sababtoo ah markii aad mataqaana ku dhibtid waxaan xadkii baa soo jartay. markaas xadkii haddaa soo jartayna waxaad tegaysaa mowqifkii waxaan ka baqayaa inaad tagtid mowqifkii abilahab sababtoo abilahab gaalnimadiisii iyo mulxidnimadiisii af iyo adin ayuu ku darsaday ilaa uu gaaray sidaan hadda aan cabaar ka hor sheegay mowqifun laa rajciyata fiih dead end
position of no return meel laga soo laabtay oo aysan jirin ma garata marka that's why Allah subxaanahu watacaala uu ogaa cilmigiisii ayuu ugu ogaa in abulahab uusan muslimaynin uusan allana rumaynaynin afkiisana aysan suurtagal kahayn ashahaado inuu kasoo dhacdo intii loo kaadin karana waa la siiyey jaanisyo aad u fara badan oo malaayiin ah laakiin abulahab waa diiday waa ku adkaystay gaalnimadiisii cadaawad iyo dagaal ayuu la galay taas waa Allah subxaanahu watacaala suurat masd ugu soo dejiyey sayaslaa naaran daata lahab tanna waxay ka mid tahay mucjizooyinka waaweyn ee qur-aanka nimankan hadda walaalaheen muslimiinta qaarkood barnaamijyadan icjaaz cilmi ka shakeeya meelaha ay mataqaanaa ay sheeg arrimaha sayniska iyo ay qur-aanka ku dabaqayaan waxaa fiican insaan oo kale mucjizaadkan waaweyn oo suurat almasad ku jirta sababtoo ah aniga waxaan u arkaa inay tahay mucjizo aad u weyn sababtoo qof nool oo 10 sano sii noolaaday oo la yiri naar baa gelaysaa يعني wuxuu ku beenin karin hadrag eragaas naar baa galaysa inuu dhaho ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuul laakiin marna ma afkiisa kama soo bixinay gaalnimadiisu sii watay marka waxaan rabaa inaan marka arintaas aan aad u xoojiyo oo aan aad ka digtoonaano insha Allah taala marka waxaan rabaa inaan barnaamijka qaybtiisa labaad u galo marka oo ah intaas waxay hordhici why am I a believer maxaan alla u rumaysanahay rumaynta alle waxaan rabaa inaan mulxidka u sheego iyo dadka mu'miniinta intaba rumaynta alle science ma aha famino to believe Allah or to disbelieve him is not based on science because science waa cilmi aadane oo isbedbedelaya allana kama dhigin science-ka in ay tahay wadadii isaga lagu baran lahaa oo lagu rumayn lahaa sababtoo ah haddii alle uu ka dhigi lahaa u dhihi lahaa mataqaanaa oo shuruudaha ama waxyaabaha alle lagu ogaado yani way tahay science oo kale uu ka caawinaya سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني وحان كتسينينا آيات كيني في الآفاق وفي أنفسهم جهوينك سماواتك الرضا وفي أنفسهم نفتوضا وحكجرة أيان كتسينينا حتى يتبين لهم أنه الحق إلا وعداته الله إنه حقيا حقنا وتنصور شكله objective truth الله إنه جرو فاهمينه سيدو عدك وجرو فهو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سيدا آد إذنكم رواقيسان إلهي ما أرى مثل ما أنكم تتكلمون أو تتحدثون تنطقون بكوس منطقة يهضلك رواقة جبقضة يهضلك وكلا دوين جبقضة ورواقاس الله مقلاي هضلكون وحلا فهماي قسم ما هنا فهمت لكن رواقي قال هذا ترى رواقي ما رواقي يا ما الله يقف كان ها وجدا ما إنكر كرم كاس ورواق سيدا رواقا وأجره أيو الله ده أجراوير مركا الله مركا دو كدي لها ساينس كإن الله بيش وكدي لها إن الجروه مايا تاس معناه وحنا قلنا هيد dadka aqoon-yahanada kaliya unba alla rumayn lahaa aqoon-yahanada waxaan ka wadaa dadka sayniska yaqaan kaliya unba alla rumayn lahaa dadka aan sayniska aqoonin ma rumayn laakiin cadaaladda ilaahiga ah that divine justice waxay alla uu ogolaaday uu diiday in ay rumayntiisu uu ku xiro cilmi aadane oo isbeddelaya taas way marka arkaysaa in rumaynta alle ay u siman yihiin Albert Einstein oo aan ka soo sheekeynay inuu yahay mucjizadii qarniga 20aad ilaa xataa qarniga 21aad oo aadanaha ku soo kordhiyay cilmi aad u fara badan oo aad looga faa'iiday culumtiisii ay kamid ahayd aynu cabar yar ka sheekeynay general relativity iyo relativity theory oo markii dambe loo noqotay haddii aysan jiri lahayn suurtagal ma ahaateen in internet aynu isticmaalno oo hadda ay mataqaana aad daawataan programkan yani qofkii base ku ah marka cadaaladda ilaahay waxay sintay Einstein oo ninka maskaxdaas aad ku weyn alla u hibeeyay iyo ninka geel jiraha baadiye geel qarso geela ku raacay oo aan weligiis magaalo arkin magaciisa qori karin wax kale ma aqoonin labadooda iimaanku u siman yihiin that's why u arkaysaa qisooyinka ninkii reer baadiye ahaa xalqadii hore aan ku soo qaadanay oo yiri oo aan weligiis cidna la kulmin oo la yiri warniyaha alla see ku rumaysay ma aad mataqaana diinba quraan iyo waxmaad arkeen markaas wuxuu yiri alba'ratu tadullu ala alba'ir salada geela waxay ku tusinaysaa meeshan geel inuu maray wal atharu yadullu ala as-sayr meesha raadkan wuxuu ku tusinayaa meeshan qof inuu maray والسماء ذات أبراج والبحر ذات أمواج أفلا يدل ذلك أن له ربا خالقا
dhul mataqaana samo oo xidigaheeda iyo saa u ifayaan iyo bad saan u ruxmaysa oo mawjoodo ay ka dhaqaaqayaan waxaas oo dhan maysan intusinayn inuu jiro alla abuuray ninkaas reer baadiyaha reer miyiga ah aan weligiis cidna la kulmin cidna arkin cidna diin ugu yeerin ayuu saas alla ku rumeeyey marka alla wuu simay the divine justice-ka ah alle uu doonay in ay sinaadaan Einstein oo ninkaas aqoonta iyo cilmiga aadan u dhan u qireen iyo ninka reer baadiyaha aan waxba aqoon ma garateen marka why am I Muslim marka rumaynta marka alle waa hanuun alle xaggiisa ka yimid faman yahdi man yashaa wa yudillu man yashaa alle ciduu doonan wuu hanuuniya ciduu doonan wuu samay marka midda kale waxaa jira iyo dookhi allana wuxuu ku siiyey dookh aadanaha alla wuxuu siiyey dookh caqliguu ku siiyey oo wax ku kala garatid wuxuu ku kala socdid wuxuu ku fahantid xaqa iyo baadilka ku kala socdid ma garatid wuu ku siiyey alam najcal lahu caynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة موانا سينين علم نجعل له عينين إنه لبا إنه أدوات المتقانة إيشك وحاواي وحكمة هاي إيشك the tools of knowledge بيرادان سينة هذا إنها دقها وحلقو مقلو إيش وحلقو أركو سنك وحلقو أوريو ندق أفك عرب وحلقو دمي تابشة مسكحة أو وحلقو كلا صوصو أو وحلقو كررو waxaas oo dhan waxaa weeye adawaat mataqaanaa ii sheeg adawaat almacrifa ama the tools of knowledge ya yani waa qalabkii agabkii aqoonta iyo wax kala soocidda iyo wax kala fahanka waa marka alle wuxuu ku leeyahay waxaas oo dhan baan ku siiyey waa inaa marka aad maskaxdaadii iyo caqligaagii iyo indhahaagii iyo aad wax ku eegtaa wax ku maqashaa waxa wanaagsan qofka wax wanaagsan kuu sheegay aad ka dhegaysataa oo haddii aadan ku qanacsanayn kala doodaa laakiin inaad dhegaysato dhagahaaga wax ku maqlaan inay noqdaan indhahaaguna inay noqdaan kuwa wax wanaagsan arka marka alla rumayntiisu waa choice waay waa choice ma aha science ma aha markii alla waxaas adwaad ku dhimay marka dookh adigu kula yaalaa suurat shams alla markuu 9 dhaaro isdaba dhigay waxaa kamid ahayd والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها naftaada ama gaal ha noqdo mulxid ha noqdo ama muslim ha noqdo laba qaybood leedahay labadaas qayboodna waxaa weeye waa wax aynu ka sheekeyn doono xalaqooyinka dambe mataqaana ii sheeg insha allah tacaala dialects iyo loolanka yani fujuurka iyo taqwada loolan ka dhexeeya qof walba oo aadana ah xataa kuwa aan muslimka ahayn ama mulxid iyo muslim qof waraba ahaado wuxuu leeyahay ii sheeg mataqaana 6 sense waxay hadda u bixiyeen ama dareenka lixaad oo ah inuu kala garan karo waxa san iyo waxa xun aysan shaki kaga jirin haddii mataqaana ii sheeg ilmo yar uu gaari jiiro rabo laamiga oo gaarigaas uu kusoo ordo qofka mulxidka ah iyo qofka mu'minka ah labaduba isku si ayay uga falcelinayaan because waxay ogyihiin inay arrin khatar ay tahay ilmahaas uu gaariga jiiro rabo mafahmina marka alla marka wuu ku siiyey waxa fitradii way kugu jirtaa is innate in you marka adiga laga rabaa inaad isticmaashid dookhoga aad yeelatid marka haddii alle marka cibaaraha waxay dhahaysaa if God had connected his existence firmly to science the atheist would look like a crazy person haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku gunti lahaa rumayntiisa sayniska dadka mulxidiinta adduunka oo joogo dhan waxay noqon lahayn dad waalan oo ekaan lahaayeen sababtoo ah sayniska oo cilmi hadda aad mataqaanaa aan xoog aadanuhu mataqaanaa aad ugu tiirsan yahay ah oo waxyaabo fara badan u kala soocay ayuu ka hor imaanaya qof waalan ayuu u ekaan lahaa ma garateen marka labada qof marka therefore marka both the believer and the atheist waxaa laga rabaa inay sheegaan they are required to say why they believe or disbelieve about existence of God logically within barracks logically marka maadaama aan saynis ahaan lagu proof gareyn karin waxa kaliya oo noo furan waxaa waaye maangal ahaan haddii la rabo in la doodo waayo anoo mu'min ah oo aan la rumaysan diyaar ayaan u ahay maangal ahaan qofka mulxidka inaan kala doodo oo aan isweydaarsano wixii oo dood cilmi ah oo maangal ah aynu isweydaarsano intaas kaliya ay noo furan garateen marka aniga marka why am I Muslim aan usoo gala marka maxaan muslim waay maxaa alla u rumeeyey markaan qur-aanka akhriyey koonkana aan arkay waxaa weeye wuxuu micno ii sameeyey sababtoo haddaan guri dhisan aan u imaado
waxa aynu isku wada waafaqaynaa gurigaas inuusan iska ku imaanin mataqaanaa chance, laakiin qof engineer ah oo architect ah oo caqli badan oo farsamo yaqaan ah inuu gurigaas dhisay oo eber kasoo bilaabay from scratch uu dhisay. marka maadaama kaas aan isku waafaqsana, marka anigu markaan koonkan eegay aan u jeedo koonkan mataqaanaa ballaciisu uu ka badan yahay 180 billion light years. waa the observable universe, waa inta kaliya aynu ognahay oo telescope-ka mataqaanaa aadanaha the Hubble telescope waxay u yaqaanaan uu arkay kaliya oo lagu soo ururiyey waaye. waxa kaloo ka badanna alla unba og. wayakhluqu maa laa taclamuun, alla wuxuu abuuro waxaynan ogeyn. xataa haddaynu in badan aynu sii ogaano, mar walba waxaynu ogeyn ayaa abuuro. sababta khalqiga alla ma istaago, waa mustamir waay, waa joogto. mar walba waxaa dhalanaya intaasoo galaxy, billions and billions of galaxies and trillions ayaa ilbiriqsi walba dhalanaya oo alla uu abuuraya. sababta khalqigiisa energygiisa ma dhamaanayo. marka suurtagal ma noqonayso marka in arrintaas noqoto. marka aniga markaan arkay koonka, markaan arkay kitaabka alla soo dejiyey subxaana wa tacaala oo koonka soo raaciyey, sababtoo ah haddii ninka gaariga sameeya, gaariga markuu sameeyo ama injineerada gawaarada sameeya ama ani wax ama xataa mobile phone-ka sameeya, mobile phone-ka waxay soo raacayaan waxa la dhahaa manual guide oo ah buuggii laga baranayay sida loo isticmaali lahaa aaladaas. gaariga buug baa la socda oo manual la yiraahdo oo laga baranayo sida buugga loo isticmaali lahaa. mobile phone-ku wuu la socdaa, computer-ku wuu la socdaa, TV wax walba wuu la socdaa, wuu sharaxaya. alla koonka markuu abuuray kitaabka quraanka ayuu soo dejiyey oo ah manualkii, the manual of the universe, guidance-gii universe lagu fahmi lahaa. markaan kitaabka quraanka akhriyey koonkana arkay ayaan alla rumeeyey oo ii noqday wax macno sameynaya jiritaankiisa xaqna ay tahay. marka tusaale ahaan haddaan idin soo qaado waxyaabaha tusaalaha kusoo qaadana waxaa ka mid ah abuuristii aadan oo ah isheeg aabbaha aadanaha. evolution theory-gii iyo waan u geli doonaa haddii alla idmo xalaqooyin gooni aan leenahay, inkastoo controversial ay tahay, laakiin haddana mar baan insha allahu tacaala hardin doonaa, madax la geli doonaa. ilahi subxana wa tacala wuxuu yidhi waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa. qof ku tadabbur aayaddaas wuu fahmaya. sababta ereyga ugu horeysa alla wuxuu yidhi jaacilun oo ah mataqaana tagayuru sayrura, change of process, macnaa wax jiri oo lasii bedelayo. marka macnaha waxay ku tusinaysaa in dadku ay jireen, ay joogeen ayay ku tusinaysaa. laakiin waa arrin u baahan in si fiican loo dul istaago. mar kalean ka wada hadli doonaa. jaacilun fi lardi khaliifa, arlada waxaan ka dhigayaa khaliifa ayaan ka sameynaya, wax jiray ayaan ka sameynaya. markaas waxay yidhahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa wax mataqaanaa arlada fasahaadiya oo dhiigna ku daadiya. taasina waxay iyadana daliil u tahay inay ay mataqaanaa isheeg malaa'igtu arki jireen, sida culummada mufasiriinta qaarkood ay dhahaan inay arki jireen wax aadanaha u eg oo mataqaanaa dhiigga daadiya oo fasaad arlada fasahaadiyey. yani waa isla aadanihi haddii si loo fiiriyo macnaha waa dadkii oo aan laakiin markaas oo aan alla uusan dooranin oo mataqaanaa isha dad sii ahaa on keliya. wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak, anagoo mataqaanaa kugu tasbiixinayna mahadaada yani bay yidhahdeen. ilahina wuxuu yihi qaala inii aclamu maa laa taclamu, aniga waxaan ogahay waxaydin ogeyn ayaan ogahay ayuu alla subxaana wa tacaala ugu jawaabay malaa'igta markay dooda ka keeneen. alla markaas sii wada wuxuu yihi wacallama aadama alasmaaa kullaha, alla wuxuu aadan baray magacyadii. marka culimmaduna way sheegaan, mufasiriinta badankood xoogooda waxay sheegaan asmaa magacyo ma aha, laakiin almusamayaat waxay afka carabiga lagu macnaha waxyaabihii jiray. musamayaat sida macnaha waxa jiray oo hareerihiisa o dhan, geedaha noqdaan, xayawaanaad ha noqdaan, waxay yihiin ayaa la baray. dhawaaqooda ayuu kala bartay, kala soocay. markuu dhawaaqa miyaa maqlo inay mukulaal tahay wuu sheegay. markuu dhawaaqa libax maqlo inuu libax yahay wuu sheegay. markuu dhawaaqa faras maqlo, waxaas oo dhan baa la kala baray. wixii asmaada marka musamayaat bay culimmada ku fasiraan, yani ma garateen. uma caradahum cala alma, markaasaa malaa'igtii loo soo bandhigay. markaasu wuxuu ku yidhi faqaala anbi'uunii biasmaa'i haaulaa, kuwaas magacyadooda noo sheega baa alla subxana wa tacaala ku yidhi. marka way garan waayeen. marka waxay yidhaahdeen ma naqaano markay yidhaahdeen nebi aadan baa mataqaanaa isheeg magacyadii sheegay oo mataqaanaa isheeg u sharaxay waxay kala ahaayeen.
iyo wixii alla oo baray subxaanahu watacaala. markaasay waxay yidhahdeen qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa calamtana inaka anta alcalaam alghuyuub ayay malaa'igtu kusoo jawaabeen. wax aan ognahay ma jiraan waxa aadna bartay mooyaane. ma garatay marka markay saas ay dhacday waxaa dhacday marka waxa la yidhaahdo ay first leap talaabadii weyneed ugu horeysay aadanaha uu qaado ayaa dhacday. talaabadaasoo ahayd in allah subxaana watacaala uu ku afuufay ruuxdiisa. ruuxda macnaha ruux uu ku afuufay waa isaga alla oranaya faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin. markii aan mataqaana aan design gareeyo aan abuuristiisa dhammaystiro wanafaktu fiihi min ruuxii ruuxdeydana aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiin. marka ereyga nafaq baan rabaa inaan dul istaago. annafaq waxaa weye afuufid. yani dadku waxay afuufaan dabka waxay u afuufaan in dabka uu kulaado oo uu dab iyo mataqaanaa kuleel uu qasya qaado. dambaska afuufay dabkiisa u dhimbiro u yeesho. marka rufuufka afuufka ruuxda lagu afuufay aadanaha waxay u furtay in uu qaado talaabo weyn oo ka dhexbaxo abuurkii alle uu noqdo mid mataqaana ka karaamo badan ka aqoon badan ka fadli badan wax badan ka ogo. isaga malaa'igtiiba meel cilla dhigay maalin oo waxaanu magacyada la yimid aysan aqoonin ay yaabeen oo alle oo kaga yaabsaday subxaanahu watacaala. marka waxa la baray waxay ahayd marka waxa la yidhahdo identification classification isheeg magacaabidda waxa iyo kala soocidooda. مثلا marka wax walba inuu garashada wax markuu arko مثلا marka halkaas oo kale wuxuu arkaya bahal socdo bahalkaas wuxuu arkaya inuu yahay libax haddana uu kala soocayay libaxaas nin miya mise naag uu sii sheegay lab miya dhadig aan ka wada astaghfirullah lab iyo dhadig uu sii kala sheegaya uu garanaya marka waa kala soocidii waxyaabaha la bari ka mid ah. marka wuxuu bartay waxa la yiraahdo the natural relationship between the sound and its body. wuxuu bartay xiriirka dabiiciga ah ee ka dhaxeeya dhawaaqa mataqaana dhawaaqa iyo jirka. libax markuu qayliyo isagoon arkin libaxa sawirkiisa qayla libax markuu maqlo wuu garanaya inuu yahay libax. qayla mukulaal markuu maqlo wuu garanaya libax inuu yahay qayla mukulaal. hadduu dhawaaqa dhurwa maqlo wuu garanaya dhawaaq dhurwa inuu yahay. kala soocid uu baray. laakiin malaa'igtu waxaas iyo abuurkay kala dhan maysan aqoon maysan alla abuuro. marka nafqatu ruuxda lagu sheegay waa taas weeye. marka waxa kale oo bartay marka xilligaas periodkaas wuxuu kale aadanaha bartay the burial and how to set a fire. sida wax loo aaso aasida marka qofka dhinto in la aaso iyo dabka sida loo shito. Allah subhanahu wa ta'ala oo arintaas tilmaamay wuxuu yiri fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylana a'jaztu يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يعني وحا الله usoo diray tuke tusaa sida mataqaana loo aaso meydka. marka wuxuu bartay sida meydka loo aaso. wuxuu kaloo bartay dabka sida loo shito. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله waa kan idin baray in aad geedka cagaarka ah aad dab ka shidataan madagta isku xoqdaan laba dhagax ama laba geed dabeedan dab uu ka dhasho. marka dabkii ayuu bartay in si dabka loo shito. الله سي وضح أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في رسيب الآذان كبر كيسي الله سبحانه وتعالى وحيري وضرب لنا مثلا الله أيوه حوسمي تصالح ويري ونسي خلقه أبور كيس وإلا صوبته أو حلقة أفور من نطفة عن رفير لقى أبور markaas wuxuu yiri qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. waana waxa mulxidiintu ay ku dhacaan hadda kuwa Soomaalida especially markaan wada doodayno mar walba waxay ku doodaan mataqaan aakhira ma jirto oo sababto qof dhintay oo qalfaaf noqday oo ciid ku darsamay sidee ayuu u soo abuurmaya dib u soo abuurmaya. jawaabta halkaan ay ku jirtaa Allah wuxuu leeyahay qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra. waxa ku tiraahdaa waxa dib u soo noolaysiinaya allihii markii horeba isaga iyada abuuray وهو بكل خلق عليم. isagoo khalq abuur walba aqoon u leh. saynis yahanada hadda jooga waxa ay sheegaan
mataqaanaa the recreation of something or remaking of something is easier than mataqaanaa creating from scratch. wax in dib loo wax jiray matalan oo kale gaari baa mataqaanaa kaa halaabay, gaarigii motoorkii uu duqeeyey, gaarigaas si loo cusboonaysiiyo oo isagoo burbursay oo lugihii baaba'een oo wax walba daateen in la cusboonaysiiyo oo dib loo soo wadada loo soo saaro waxay ka fududahay in gaari cusub from scratch aan waxba haysan in laga sameeyo. saynisyahannada dhammaantood aragtidaas way qabaan wayna sheegaan. marka taasina waxay ku tusinaysaa aayaddan qur-aanka hadda odhanaysa qul yuxyiha aladii anshaaha awala mara. waxaa ku tirahdaa waxaa soo dib u soo nooleysiinaya allihii markii horeba abuuray. marka labadaas arrimood oo bartay. marka maxaa dhacday marka first of all dhacay markuu uu bartay sida dabka loo shiday iyo sida meydka loo aaso waxaa dhacay marka soo hoobashadii koowaad. hoobashadu marka dadka culimmada qaarkood mufasiriinta waxay yidhahdaan samada la ka soo degeen. xoogaa aragtidaas anigu waxaan ku waafaqsanahay doctor maxamed shacruur oo sheegaya inay ahayd dhicitaanku ama soo hoobashadu inay ahayd dhulka inay ahayd aysan samada ahayn. sababtana waxaa weeye aayadaha kale ayaa ayidaya. sababta qur-aanku sida ibnu kathiir uu yiri yufasiru bacduhu bacdan, barkiis barka kale ayuu fasiraa. marka alla wuxuu yiri faazallahuma shaytaanu canhuma faakhrajahuma mima kana fiihi waqulna ihbituu bacdukum libacdin caduw. waxaan ku niri hoobta. marka hoobashada ka hoobta jannadii oo jannada ahayd samada ahayd ma aha sida doctor maxamed shacruur aan ka dhageystay ama kitaabadiis ka akhriyey. sababtoo meelo kale alla wuxuu ku leeyahay ihbituu misran. nabi muuse iyo ciidankiisii markuu la hadlay ihbituu misran, masar u dega. waa degitaan macnaa meeshaas in meel laga tago alintiqaal min makaan ilaa makaan, in meel laga tago movement from place to another place, in meel laga tago meel kale la tago ayuu ku fasiray doctor maxamed shacruur. fikirkaas ayaana raajix ila ah oo casrigeena nool. marka meeshii jannada marka beer bay ahayd adduunka ku nool, adduunka ku taalla, arlada ku taalla oo aadan iyo laga soo saaray iyo sheeg iyo aadan lagu yiri ka deg beerta ka hoobo. marka ay taas dhacday marka waxaa dhacday marka second leap oo mataqaana ay sheeg talaabadii kale oo weyneyd oo kale oo hore loo qaaday oo talaabadii koowaad waxaa lagu soo baray aadan magacyada la soo baray iyo sida wax loo kala soo soco. talaabadan labaadna waxa waa talaabo wax cusub u baranayo. wax cusub u bartay waxaa weeye waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo abstraction ama afka carabiga at-tajriid. tajriid u bartay oo wax fikir ahaan micno kuu sameynaya laakiin jir ahaan aan u jirin, ama ay yidhahdaan subjective objective iyo subjective truth. wax subjective oo daati oo gudaha aadanaha iyo maskaxda aadanaha ka jira laakiin banaanka aan mataqaana sameynin ayuu bartay. marka aadana markii nabi aadam uu khalad ku dhacay mataqaana isaga iyo xawa, inkastoo qur-aanka magaceeda xawa lagu sheegin, hooyada aadanaha, labadooda markii ay geedka cuneen oo uu shaydaanku ku waswaasiyey dabeedna lagu yiri ka dega ka baxa jannadii ama beertii aad ku jirteen ka baxa la yiri, ay ka soo baxeen way toobad keeneen. markay toobad keeneen alla toobadii waa ka aqbalay. marka toobadda macnaha weeye marka aqbalaadaas toobadda ayaa waxay tahay talaabo weyn hore loo qaado sababta aadana waxaa la baray in ay jiraan fikirkaa la baray. marka awal waxay ahayd wixii ku hareereysnaa dhawaaqoodii iyo araggoodii, hadda waxaa la baray fikirkii in wax fikir ahaan u jira laakiin aan jir ahaan u jirin, sida toobadoo kale. toobadda waa qof toobad keenaya, waa arkaysaa ilaahay oo ii dembi dhaaf ducaysanaya oo dembi ka toobad keenaya, laakiin toobadii jirkeedii ma arki kartid, waa abstractionkii waay. that's why Allah subxaanahu wa tacaala u yiri fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh. aadan wuxuu alla xaggiisa kala kulmay kalimaat, words, erayo. waxa weeye abstractionki waa cashar kale oo la baraya fikirkaa la baraya, fikirkaa laga dhisaya inuu fahmo wax inay jiraan aan jir ahaan u jirin laakiin fikir ahaan u jira. fataaba calayh inahu huwa tawaabu raxiim. mafhumka taas waa marka qur-aanka meelo badan waana ruuxdii marka alla ku afuuf meelo badan qur-aanka alla subxaana wa tacaala uu kaga sheekeynaya ruuxda. wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. doctor maxamed shacruur arrintaa fasiraya wuxuu yiri waxay ku weydiinayaan ruuxda maxay tahay. waxaa ku tirahdaa ruuxda min amri rabbi
وأمورت أمرك الله أي كم تاي أمرك ربنا محاكم ده صلاة الله وحنا أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن صلاة أن أجنه زكدي أن بحنه وأمر الله واي مركا صلاة دي الزكدي وحكمت هاي أمرك الله روح دي معرفة دي أقانتي مركا أديك أركت وحركة قفت كناية صلاة لكن ما أركيس الصلاة دي وجركي دي أهان أو بنانك وبحسن ما أركي كرتين صوت وحواي وابستراكشن واي and that's why الله مالك الأوير وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هل كان على روح ذي وحكوتنا من أتاي من أمرنا أمر كان ميت كمده صوت أمرها قرآن وحون أمره من وروح ذي الله وأنا ونفخت فيه من روحي آيات وري سوق على الآيات الله إنه كأبوري أو الله أبري هذا فهمك abstractionka waxa aan jirka lahayn ee maskaxaan iyo fikir ahaan u jira marka arintaas ay dhacday aadanuhu uu fikirkiina ka dhismay araggii iyo maqalkii iyo wixii ku hareeraysanana uu bartay wuxuu dhacday marka waxa la yiraahdo hubuudki kale labaad oo ah the second fall marka second fall waxa ku dhacday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waa isla suurat al-baqar aayadda 38 qul nahbitu minha jami'an tii hore waxay ahayd ihbitu بعضكم لبعض عدو فإما يأتين بعضكم لبعض عدو ومتاع إلى حين هيتي هر مكت إهبات كهر وحوها متكو كوبا ومتاعا إلى حين لكن كان وحاوي قلنا اهبطوا منها جميعا لما انتم كهوبتا كدقا كبحا فإما يأتينكم مني هدى هدي وهنون حقيقة إذا كي ماذا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مركان وحاوي آدنه وحوكا لنجبي مدرسة إلهي جاهيد أو إلهي سبحانه وتعالى أو كبرتي فكركي يوحي فكر هان أجري يوحي حق أجري هان أجري رواقه ذي ومغلي أيو برتي سداس أيو قدبي أرنتاس abstraction كأنا وأرنتا أنيجا إصاب xoojinaysa iimaankayga alle inuu jiro itusinaysa sababtoo ah hadduu uusan alle jirin su-aasha imaanaysa waxa weeye waxa koonkan ku abuuran dhan oo nature-ka ah ama dabeecadda ah waxay ku dhisan yihiin wax la yidhaahdo tanaaqudaad ama contradictions waxyaaba iska soo horjeeda wax abstraction ah ma jiraan xayawaanku abstraction ma leh xidigu abstraction ma leh qoraxdu abstraction ma leh wax abstraction aan aadanaha ka ahayn oo leh ma jiraan marka su-aasha imaanaysa waxa aadanaha abstractionka xagee ka keenay xagee ka bartay marka ay mulxidiintu ku doodaan aadanaha iyo xayawaanku waa isku mid oo evolution theory waxay noo sheegaysaa in ay evolvement sameeyeen daanyeer ka yimid bahalla kale ka yimaadeen waxyaabo kale okay khalad bay u fahmayaan xataa evolution theory-ga laftigeeda nimanka saas dhahaya sababtoo evolution theory-ga waxayba sugaysaa jiritaanka allay xoojinaysaa qofkii si dhaba u fahma oo cilmi ahaan u fahma waxay xoojinaysaa waa qofkii aan therapy ku samayn oo intuu raba kasoo goosgoosanin dabadeedna uusan dadka mu'miniinta iyo muslimiinta kula dagaalamin laakiin qofkii si dhaba daacada u fahma waxa ay tahay wuxuu fahmayaa in ay sugayso alle inuu jiro marka dadka xataa idinka haddaa saas ku doodida xataa waxaa imaanaya su-aasha imaa abstractionka xaggee ka keenay waxaan extrada ah fikirkan aadanaha oo u sameynaya micnaha xaggee ka keenay sababta fikirka aadanahana xalqooyinka hore saan ku sheegnay logigiisa waa hal sharci oo ah without contradiction inaysan waxa uu qofku ku hadlayo ama uu aaminsan yahay ama uu sheegayo ama uu ku doodayo in aysan iska hor imaanayn koonkan aan ku noolnahayna wax walba waa iska hor imaanayaan habeen iyo maalin kuleel iyo qabow wax walba waa iska hor imaanayaan bidix iyo midig lab iyo dhadig cabsi iyo nolol ama colaad iyo nolol wax walba saas iska hor imaanayaan waa laakiin fikirka aadanaha ah iskama hor imaanaya marka su-aashaas ayaa waxay imaanaysaa ah si xaggee ka keenay yaa baray who taught humans abstraction yaa baray aadanaha abstractionka waxaan jeclaan lahaa mulxidiinta fikirka aaminsan alla inuusan jirin inay arrintaas kasoo jawaabaan insha allahu tacaala xalqadan oo aad aan mataqaana ay u dheeraatay aad ayaan uga xumahay maadaama aan rabnay inaan koobno aynu dul marno qodobo aad u fara badnaa marka insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaynaa intaanu xalqadan mid kale lamida kula kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino